daawadayaal halka aad nagala socotaan waa warbaahintii GS Media barnaamijka iyo qodobada aynu ku soo qaadan doono waxa kamid ah nimankii Sabaroon oo caawa ku ballansan Britoole inay gacanta taagaan. haddaba maxaa ay ka mudaharaadayaan amaba maxay gacanta ka taagayaan kadib markii ay ogaadeen heer ciise in lagu qaban doono magaalada Saylac shuruud kasta ha ku xidhnaatay ee Somalilanti ay ka noqotay go'aankii ay hore u yeelisay ayaa Sabaroon caawa afka furatay. sidoo kale waxa jirta heer ciise Somaliland maxay shuruudaha ku xidhay amaba maxay ku ogolaatay halkeese ciise markii hore ka taagnaa. waayahay qodobada iyo qodobo kale oo ku soo koobaynaa barnaamijkeena adiguna aragtidaada kaga qayb qaado like saar barnaamijkana share gare. wuxuu yiri hubka samada loo tuuro iyo hubunka yeedhaya hanjabaada iyo dhaarta iyo heer isugu faanka alla ilaahay hareertan lahay waa ka hurudna. waxaanu barnaamijka ku horeysiinaynaa nimankii Sabaroon bal hadda halka ay ugu daado nimanka wasiirada lagu sheegay ree awdala shaqaalaha ah waxa loo soo dirayaa wax kala ma in umadiini la yiraahdo nacam wixii go'aankii ka noqda umadu ma hageem wani hore kuugu sheegay lagu ciyaarayo xildhibaano kulamada golaha deegaan golaha wakiilada ka tirsan oo gobolka wada lagala soo doortay xildhibaan meedhane aragtida aad maanta qabto xildhibaanadii golaha wakiilada kulamidka ahaa ma kula qabaan mise waa aragti shakhsiyan adiga ku gaar ah oo aad maanta warbaahinta aad la soo hor fadhiisatay run ahaantii way la qabaan 90% ma aha mid aniga ii gaara deenikiisa gudamiirkiisa wax kale ku hadlayaade doorateen inaad soo fadhiisisaan bad xaq ugu leedihiin oo waxaan ku dooranay waxaan ma hayne ka jawaab tiraahdan isaga wala mahadsantii. nimankii Sabaroon marka aynu halka kaga nimaadno aynu ka jawaabna hadhow nimankan ciise Somaliland miyay xoogeen bal hadda halkan igula daawo sidii ay u hadlayeen 7 casho ka hor maalin iska daaya saacad dib uma dhacayso saacad dib uma amni darteed baan u qabtay yiri amni ma qabanna dab buu shiday beesha ciisana waxaan leenahay dib baan u tashanaynaa tala damba inoo dambaysa agasa wax naga dambeeyay ma jiro waan diyaarnahay waan imanaynaa Saylac ciisana meeshuu ka joogaba ka yimaado oo annagoo ah gandihii amba goortidii beelweynta ciise oo fadhina gurigii ogaas Mustafa Maxamed Ibrahim annagoo fadhina waxaan baaq u diray bishuna tahay 13 bishii 11aad waxaan baaq labaad u diraynaa oon ka diraynaa baaqi ka soo baxay madaxda ra'iisul wasiirka arrimaha gudaha ee saaka uu kaga dhawaaqay Saylac taabaan baaq ka soo diraynaa waxaan u diraynaa beelweynta ciise halkay dooniba ha joogtee ballantii. waayahay Sabaroon waynu dambaysiin doonaa nimankan ciise horta waa nimankii sidaa u hadlayay ee Somaliland u hanjabayay ee aan wax Somaliland la yiraahdo aqoonsanaynba marka laga reebo in yar oo awalba dadkii dalkaba kula lahay nimankan waa nima soo duulayday bal haddaba waxa jirta hadda ka hor inaan soo geliyay habeenkii wasiirka arrimaha guduhu Saylac u hoyay koobaad dad badan baa waxay comment ku soo qorayeen ma jirto Somaliland go'aankii kamay noqon way ka noqotay iyadoo la sheegayo shuruudo ku xidhan oo si diblomaasiyadeysana oo Somaliland iyo xeer ciise la isu yiri eegayo amaba dastuurka Somaliland iyo buugga xeer ciise laakiin waxa la qaatay in xeer ciise lagu qaban doono Saylac ciise laftigiisuna qayb kamid ah isku khilaafsan tahay wixii nabadgelyada iyo ammaanka Somaliland khalkhalinaya iyo deegaanada in ay ka soo horjeedaan balse aanay wali dibadda u soo bixin arrintaas. waxa jirta haddaba Sabaroon caawa waa gadoodsantaa waxay yiraahdaan laguma qabanayo lagumana qaban doono sida arkaysiin. haddaba waxa weeye xukuumadda Somaliland xildhibaano ka tirsan Maxamed Abiib u horeeyo ayaa waxa uu gaaray amaba
waraysi gaara isla yeesheen degmooyinkii uu xildhibaanka u ahaa kabacdi wuxuu si rasmiya ugu sheegay xukuumadda uu ka tirsan yahay in xeer ciise ay ogolaatay lana qaban doono waa sababta koowaada kicisay sabaroon taas waa qodob sabaroon waxay sheegtay markii horeba cidda wax diidaneed bayna iyada ahayd laguna qaban doono niman yahow horta nimankaa sabaroon iyo markay ciise noqoto sabaroon waa muwaadiniin reer somalilan oo taariikh ku leh ha ku lahaata ee sayda waxa ay ku diidan yihiin waa waxaan anigaygani ku diidanahay somalilan nimanka la yidhaaho gadabuursi waa asaasayaasheedii waa aqoonteedii ma aha in si gooniya looga tashado waxay ahayd in lala go'aan qaato wixii laga yeelayo ay noqoto wixii somalilanna ka yeelayso waxa maanta halkaa ku hoos jira oo aqooni ku duugan tahay in dal la ysku hayo ee aan buugga xeer ciise la ysku hayn sababto tahay buugga xeer ciise hool baa lagu qabanaya waana laga dareeraya laakiin marka arrinta beelaha loo eego sheegashada gobolka saylac ayaa meesha ku jirta xukuumadda haddii aan anigu fikirkayga iyo kuwa dadweynaha igu xidhan ee sharafta badan aan la kaashado wixii ammaanka iyo somalilan deegaamadeeda khalkhal gelinaya wixii marka horeba aan nasteexa lagu doonayne xoog lagu doonayo inay ogolaato maaha marka la eegayo maanta gobolkii salel ma aha meel ciise leeyahay dee waa meel somalilan ummadda somalilan ay degto ee cid walba leh ugu badnaan 3 reer baa dege waxa weeye isaaq ciise iyo gadabuursi saddexdaa ninkay igu diidanaya saddexaasba degan yihiin ama degmooyinkeeda ha noqoto ama gobolka gudihiisa ha noqoto reer keliya in qalinka loogu duugo waxay ay doonayaanna ka yeelaan ma aha haba loogu duugo ee shirku haddii uu ka mid yahay shirarkii horeba somalilan uga qabsoomi jiray ee aan amni darrada iyo xasilooni darrada bulshada abuurayay haddii uu ka madax bannaan yahay arrimaha waa lagu qabanayaa waxba kagama duwana kuwii beeluhu qabsan jireen laakiin arrinkan waa arrin dee somalilan ka soo horjeedo caddaana ma aha buugga quraha iyaga kuwa hadlaya ee odayaasha gandiga la sheegaya waa niman ka soo horjeeda si cagsiya somalilanta laftigeeda waa niman jabuuti xajaarta ama baytarigooda laga soo dabaynayo waxay naga qarsoon maahayna waa kii dee jabuuti uu ku shirayey kuwii dir dhaba joogay kuwii halkaa joogay kii isugu yeedhanayey nin jabuuti laga xukumaa somalilan siduu uga hadla arrinkaas waa arrin dabagal leh nimanka sabaroon waxaan leenahay marka hore horta wixii ammaanka wax yeelaya kiina iyo mid kaleba waa in horta laga taxadiraa oo dhallinyarada gadoodsani ay horta gadaal isu taagaan ilaa iyo go'aan la siiyo waa inaanay ku degdegin arrin aan laga fiirsan waa inay ka doodaan wixii ay wax ku hagaagayaan in dagaal dhaca waxba ma soo sido in qof dhintaa waxba bedeli mayso qofka adduunkan ka sii taga ee dhintaana waabu dhintay adduunkan muxuu kusoo kordhinayaa kan nool ama intay nool yihiin ayaa la tashan karaa odayaasha boqorrada muwaadiniinta waxaan ugu baaqayaa dagaal degdega ay horta yu jiri waa kow somalilanna waxaanu leenahay go'aanka maanta xeer ciise lagu ogolaaday ee aan sida tooskaa loo soo bandhigay sidii horeba loogu soo bandhigayay muxuu yahay somalilan maxaa shuruudaha ay ku xidhay xeer ciise way isla ogeyn halku somalilan ka taagan yahay balse maxay somalilan shuruudaha ay ku xidhay bal bayaamiya oo ummadda u caddeey barnaamijka aragtidaada kaga qayb qaadanaysaa sabskraibta hayga ilaaweyna sheerta iyo liketa iyo commentigu aad aragtida ku reebtaan waa xaggiina maanta ciise dee dagaal ugu diyaar garoobay cidda uu ka dambaysa iyo halka lagu hogaaminayo way fahmaynaa ilaa kuwii xamar joogay baa hadlayay
in la isku ogolaado maaha wixii lagu ogolaadaha naloo sheego saylac waa magaalo ka horreysay somaliland la sheegayba waa waqtigii nabigay xaadir ahayd oo wataa dee dhablatay karahtay ma aha magaalo reer loo afduuba iyo reer loo saxeexay iyo waxay doonayaan laga yeelo reer hajabaya weliba laakiin wada tashi baa dee wax lagu noqdaa haddii lala tashaday oo la isla qaatay oo la isla gartay maxaa loo shaacin waayay talabaad waxa weeye ama beesha ciise ha noqoto ama beelaha kale ha noqotee wixii ammaanka deegaanka khalkhal ku keenaya sidee ay somaliland u ogolaata ma la isku dhintaba ciise dee hadduu dan ogol yahay oo xeer danaynayo oo bulsho danaynayo oo ammaan danaynayo tuulooyinka ku xigaba isaga alhoodee uu ku qabsan karaa soo ma laakiin haddii saylac maanta lagu qabto weyn ogna waxa ka dhacaya waa car iyo carun dee soo ma looma baahna somalilandna waxaanu ka sugaynaa inay sababta lagu ogolaaday caddayso bulshada reer awdal ee caawa kacsanna waxaanu leenahay ha degdegiina tan iyo kulanti dama wada salaamaya sabskraibka waa xaggiina